xuska sanad guuradii 28aad ee ciidamada booliska qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa laga xusay gudaha magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Kumanaan ka mid ah ciidamada booliska qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa gudaha magaalada Burco ku soo bandhigay dowladda isugu jira gaada ka ciyaar iyo dowladda kala duwan ee sameeyay ciidamada booliska qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. madaxdii kala duwaneed ee saraakiisha ciidamada booliska gobolka Togdheer ayaa ka warbixiyay marxaladihii kala duwanaa ee ciidamada booliska qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolka Togdheer ay soo mareen. madaxdii kala duwaneed halkaasi ka hadashana waxa hadalladoodii ka mid ahaa sida tan: dambiyada dhacay waxa weeye 3367 dambi weey waa gobolka Togdheer baan ka hadlayaa. waxa la xukumay 1234 garsiga waxa ah 173 si fudud loo dhameeyay 1620 wey. xagga dilka waxa muxuu ahaa dil 20 kiis 9 waa la xukumay garsiga waxa ah 9 kufsiga waa 75 29 baa la xukumay 15 ayaa garsuga ah. waxa cadaan waayay 24 7 way socotaa muxuu ahaa kiiska uu socdaa. okay khamri 193 kiis ayaa la qabtay khamriga 145 ayaa xukuman garsiga waa 29 waxa lagu waayay maartay waxa weeye 15 cadayntii baa lagu waayay 15 afarna way socotaa kiiska uu socdaa. ilma la tuuray waxa weeye hal xashiishad way gobolkan hadda imika xagga mukhadaraadka marka la yiraahdo waxaan aaminsanahay inuu gobolka ugu imika mukhadaraad yar inuu yahay gobolku. saraakiisha ciidamada militariga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo asluubta ayaa dhankooda iyaguna hambalyo u diray sanad guurada 28aad ee ciidamada booliska qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolka Togdheer. iyagoo hambalyadaasi ka hadlayana waxa hadalladoodii ka mid ahaa sida tan: rajaynaya sanad guuradeeda Ilaahay nabadgeliyo iyo caafimaad iyo barwaaqo idinku gaarsiiyo dhammaan Ilaahay nagu wada gaarsiiyo. ciidamada booliska waxaan leeyahay sanad guuro wacan hambalyo Ilaahay haynagu gaarsiiyo sanad guuradeeda kale bashbash iyo barwaaqo. wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Burco Cabdirsaaq Ibraahim Cabdi iyo gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Ibraahim Nafaqo ayaa hambalyo bogaadin u diray 28 guurada ciidanka booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland oo lagu xusay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. iyagoo arrimahaasi ka shaqeeya waxaan aaminsanahay duruufihii laga soo gudbay iyo xaaladihii adkaa ay booliisku ku soo shaqeeyeen inay ku soo shaqeeyeen xaalad dhab ah oo wadaniyadeed oo ka turjumaysa akhlaaqdii ciidanimo ee la soo baray oo ka turjumaysa rabitaanka dhabta ah ee bulshadeena iyo shacabkeenu ay hiigsanayaan. waxaan farxadda la qaybsanaynaa una hambalyeeynaa ciidanka bilayska ee Jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ay joogaan. waxaan leenahay hambalyo Ilaahay abaalkiina ma gudi karnee ka dhiga janno caafimaad cimri dheer iyo cibaado suuban Ilaahay ka dhigo. kuwa iska seexdaan qaadka way jecel yihiin way iska qayilaan way iska safraan laakiin aad uma dareensana in cid ilaalinayso aan seexanin. dhaxani haday jirto subaxii biyaha la diirsado cid habeenkii oo dhan soo jeeday inay jirto hadii cid ay iska nabad ahaan iskaga hurdo aanay ogeyn waxa dhacay in dhibaato iyo dil dhacday iyo kufsi dhacday cid u heegana oo shidaalkoodu u buuxo oo raadaarkoodu aanu baqtiin in ay jirto. ciidamada booliska qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolka Togdheer ayaa 24 saaxiib ugu jira sida ay u sugi lahaayeen amniga gobolka Togdheer ugana saari lahaayeen mukhadaraadka kala duwan gobolka Togdheer. waa Saciid Cali Cismaan xaalay telefishinka caalamiga gobonimo magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer.